inay isku xidhmaan waa muhiim. marka aqoonyaha masaajidka ku xidhmo intii u baahanna way ku soo xidhmaysaa, inta u baahanna way ku soo xidhmaysaa, way ka daba imanayaan. sidaa darteed waxaynu ka fikiray inaynu jaanis siino aqoon-yahanadeenna qof waliba mawduucuu yaqaano inaynu ka bartino. marka waxaa hadda inoo bilaabay doctor Saciid oo habeenkii dhow ka hadlayay cilmiga manaamaadka iyo sida loo fasiro iyo miisaankiisa. caawa waxaa inoo labaa doctor Gabosi jazakallahu khayran, wuxuuna ka warrami doonaa mawduuca aan idiin soo qadimay. mawduucani waa mawduuc muhiim jiddan ah. ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu ballan u qaaday ruuxa aqoon u yeesha nolosha bini-aadamka inuu ilaahay awoodiisa ka dhaxarkay. haddaad aqoon u yeelato cilmiga bini-aadmiga noloshiisa iyo organiskiisa, haddaad aqoon u yeelato siduu kuu wado ayuu ilaahay awoodiisa ku dulgeynaya. ilahay baa qur-aankiisa ku yidhi sanuriihim aayaatina fi l-aafaaq wa fi anfusihim xataa yatabayana lahum annahu lxaq. waxaan ballan u qaadayaa ninkii aqoon u yeesha jawiguu ku nooleeyahay ama noloshiisa ninkii aqoon u yeeshay inuu awoodda ilaahay dhab u yaqiinsanaya. intaanan doctoorku gelin hal masalo oo aan kala kulmay nin macallinkii ahaa markaan ardayga ka ahaa fatanadii semesterkeygii afraad. nin talyaani u ahaa. ninkaa talyaaniga ilaahay oo dahri u ahaa maadada physiolojiya la yidhahdo loo dhigi jiray. wuxuu ka sheekeynayay xubnaha dhiigga qaada jidhkeenna waraabiya waa laba qaybood. qaybo waa qaybta jidhka ka soo celisa wixii qashina iyo kaarboonkeed. qaybina waa qaybta nafaqada wada ee jidhka u qaybisa baahideeda. qaybtan jidhka u qaybisa waxay toos uga soo baxdaa wadnaha. bombada wadnuhuna waxay awood u leedahay madaxa ilaa ciribta inay waraabin karto. marka dhakhtarku wuxuu markaa ka sheekeynayay xididadan dusha maraya muuqda ee jidhkeena haragga keliya ka sarreeya. wuxuu yidhi waa xididada ka soo noqonaya jidhka ee wada qashinka. xididada buulayaasha ee wadnaha toos uga baxa ee jidhka waraabinaya murqaha hoostooda ayay ku gabanaan. murqaheena hoostooda ay galaan. ma xigmad baa ku jirta buu yidhi. markaa xigmaddaa ku jirtaa waxa weeyaan haddii xididada wadnaha toos uga soo baxaya bannaanka la dhigi lahaa, haddii makiinad yar ku sabto ama nabar yar kugu dhaco dhiigbax baa loo dhiman lahaa. sababta oo ah dhiigga uu wadnuhu soo saaro xoog buu ku socdaa. deedna ma siiyeen fursad inta ay ciidanka gurmadka ee sameeya injirowga intay isu yeedhanayaan ay samaynayaan injirta fursad may siiyeen. xooggaas wuu mar walba ku tuuri lahaa inta inay injirta ee la sameeya. ka qofku intaa dhakhtarba la gaarsiiyey ayuu dhiigbax ku dhiman lahaa. laakiin xididada dusha maraya waa xidida dhiigooda soo daaray, wadna soo riixayna ma jiro. aayar bay iska soo socdaan. marka nabar yar ku dhaco waxay helayaan fursad ay ku samaystaan injirtii deedna dhiigu joogsanaya. ninkii intuu dabanada qabsaday talyaaniga ahaa yaan ilaahay garanay ayuu kelima talyaaniga cajaa'ib ugu yidhi vedete ragazzi miei vedete come la natura ha pensato tutto. انظروا يا أبنائي كيف فكرت الطبيعة من كل شيء. والأفر سنة بولي سنة الطبيعة وحو بوصي فكرتي وأنك بركو رأى عليه نظامك يا رب عليه إلهي وقلت لك عليه لدرسوك لك كي هالستكيني لحالة واسمري مرقها كي لجل عن دكتوران كسهالة دوشة وسومري يونيكي قال قاضية farsamada ayaal kale wuxuu ku tiiriyay isagu dabeecada aad bay u fikirtay wax walba way ka fikirtay
ilaahay ka fikirtay si qofka looga badbaadiyo dhiigbax marka haddii aad u fiirsato ilaahay farsamadiisa tabaaraka wa tacaala iyo siduu u sii dhigay nidaamka nolosha iyo siduu nolosheenna u badbaadiyo yaa ba ilaahay u keenaya marka waxaan kusoo dhaweynaya doctoorka oo ka hadli doona bal cajaa'ibaadka ku jira cilmigan oo aqoonta u leeyahay xaqiiqatan cilmigan oo aqoonta u leeyahay waa yani cilmi inta taqaana farakutilislahay waana cilmi aad u adag oo nin ay kuyugiisu aad u sarreeyo nin kale aan u bareegi karaya barashadiisa marka waxaan ka martay aqoonta ilaahay uu wadeecada iyo haysto waliil ilaahay naga dhex tuso kusoo dhawow doctor بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا أنسكون من المساجد وحان الله كبريا إن مراد كهذا الكيب ونغضو ميدو يصور عليك نغضو وحان الله كبريا ودمانتين انت لغيسين انت لجيدين السبب أن كهل أجري خير عاول مع السمين حنون هبل كهذا حنون هبل كهذا تاسا إيد بيران لهيد هل حنون كسوحد النواد ردي لي رمت لكن وحال يري قيبتان شركة بني آدم كميدة عدوات كشغيسيد إيو اسكو حركة هذا إني حسوسه انت نهار شوكتي انت نرغيساني سبا إن إله أبوريستيسو أي كسو نحب حلقفك ومارت أو كوق عبرائي مارت كوق هاتان رئيس ودوكتهنا القرآن كان وحكو بضن isagoo dadka ilaahay ku baraarujinaya ومن آياتي وحيال بضن نوعاس إلهينا وحويري قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا haddaan damacno caawa inaan iska dhigno xariif sheegi karo wax badan waxaan hubaa wax kastoon isku dayo inaan sheegaa inaysan ahayn dhibic yar hase yeeshee dhibicdaas yar baan isleenahay bal inaan gudbino ayaan isku dayay sidaad ogtihiin ee aan qur-aankeenna aad ka akhriseen ee ilaahay noo tabiyey aabbaheen nebi aadan baa la yidhaahdaa bini aadamka marka nebi aadam laba marxaladood buu soo maray abuuristiisa marxalad dhoobo laga abuuray oo laga shaqaynayey in la qorqoro suuraddan bini aadamka iyo marxalad markii taa la dhammeeyey wanufika fiihi min ruuxii ilaahay uu geliyey marxaladdii koowaad malaa'igta lama odhan u sujuuda lama odhan aqoontaada sheeg wax sheeg aadam wacallama aadama alasmaa kullaha bali lama odhan dhamaystiray ayuu noqday mas-uul xil qaadi kara mas-uul xil qaadi kara lala xisaabtami kara haddaba waxaan ka dhigay mas-uulka weyn caawa qaybta anigu aan ka shaqeeyo ayaa dadku waxay isku khaldaan laba shay qayb luqadda ajnabiga waxaa lagu yaqaanaa nervous system maahan dareen qaade waxaa laga wadaa wixii banaanka fariinkaaga keena ee dhaqdhaqaaqo dhan baa ku jira isagana waxbaa ka baxo oo waxbuu fuliyaa ya ee dareen ma soo qaadee wuu isna waxbuu fuliyaa gacantaan dhaqaajinayo dareenka ii keenay baa i dhaqaajinaya marka waxaa loo yaqaanaa nervous systemkan see buu ku abuurmay maxaase ka dhaxeeya nervous systemku xaggee buu ka yimi muxuu yahay waxaan idiin sheegayaa nervous systemku waa 3 qaybood waa maskaxda iyo xangulaha iyo neerfayaasha dibadda aadaya oo xubin kastoo jirka ah gaaraya ama fariina ka soo qaado ama shaqaha u diraye 3 qaybood weeye maskaxda xangulaha iyo neerfayaasha intuba waxay ka mid yihiin jismigii dhoobada ahaa intuba waxay ka mid yihiin jismigii dhoobada ah wax kastoo jismi dhoobada ka tirsan waxaa laga wadaa wixii aad taaban kartid ee qofkaanu leeyahay haddaan ku taabto waa dhoobada jirkeedii wey
haddaan inta ku jeexo wadnahaaga taabto waa dhoobadii, haddaan calooshaada taabto waa dhoobadii, haddaan maskaxda lafta furo oon taabto waa dhoobadii, haddaan xambullaha dhabarka jabiyo waa dhoobadii. wax allaala wixii la taaban karo waa abuuristii hore dhoobada wey, waa qofkii dhoobada ahaa. laakiin qofkan ma wadaan, maskaxdaani ma wado, waxaa wada qaybtii labaad ee ahayd ruuxan dhahno, nafsadan dhahno, qalbi aan dhahno. su-aalaha ugu waaweyn ee ilaahay nabigeenna weydiinayey, la weydiin doono maxaan dhahaa ay gaaladii weydiinayeen ayaa waxaa ku jirtay wayas'aluunaka can iruux qul iruux min cindi rabbi min amri rabbi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila. macaa jirkan kale waad baran kartaan, aqoon waad u yeelan kartaan, laakiin ruuxa inaad barataan ood wax ka ogaataan aqoon uma yeelan kartaan. ilaa qaliilan bal cilmi. maanta haddaad dhakhaatiirta dunida baartaan intaas oo qaybood oo takhasusay u kala bixi, mid ilkaha ku takhasusay, mid indhaha ku takhasusay, mid maqaarka ku takhasusay, mid neerfaha ku takhasusay, mid lafaha ku takhasusay, mid dumar ku takhasusay. dhammaantood waa qaybtii dhoobada ahayd, dhammaantood waa qaybtii dhoobada. waayo qaybta kale meel ay ku jirtaba cid garan kara ma jiro. ma maskaxday fadhidaa ya xageebay jirkeenna xageebay ka fadhidaa, qaybtaanna maamulaysa, annagana maamulaysa. marka qaybtaas horumarkeedu kun jeer buu ka gaaban yahay qaybta kale ee jirka dhakhaatiirta faraha badan ay wada qaateen, ayuu ka gaaban yahay. waayo waa waxaan la arkayn ee araggiisa lagu mala awaaliyo keliya, calaamadaha dadka laga dhex arkayo keliya lagu awaaliyo. saasuu u dhaqmayaa, saasuu yidhi, saasuu yar keliya. haddaan ku geliyo MRI scan qalab kasta lagu geliyo meel laga soo helaya ma jirto ruux, laakiin maskaxda waa lasoo sawiraya, wadnaha waa lasoo sawiraya, meel walba waa lasoo sawiraya. haddii dhig la qaado, haddii wax kasta la qaado, haddii dhacaan la qaado, waa qaybtii jismiga. haddaba si aan iskugu xiro ilaahay xamdinaqa uu kugu leeyahay, aan ka bilowno adigu xageed ka timi. aadan ka soko hooyada iyo aabbaha markay ku dhalayeen, aabbaha ma meel jirkiisa kamida baad ku jirtay oo kayd ku ahayd, oo markaas baa markii kulankii labada waalid dhaceen laga waxay. waxaan iin sheegayaa waxba maadahayn, hal shayna maadahayn. ee ilaahay baa warshad kuu sameeyey, muuska, cambaha, caanaha, lo-da intuu isku xirxiro uu ka sameeyo millimooyin malaayiin ah, oo habeenka kulanku markuu dhacayo intaasoo walaalahaada aada nasiib u yeelatay adigu ka keliya la kulmay baadkii hooyada. marka maad jirin, ciiddaa lagaasu sameeyey. cambahan, muuskan, caanahan waxaanad cunaysid ayay ka soo sameeyeen, macnaha warshadaheenu ka soo sameeyeen inay lilnimo sameeyeen. okay, markay labadii sameeyeen hal unug ay sameeyeen oo tarankii bilaabmay, usbuucyo kadib qofkii bini aadamka ahaa wuxuu u kala baxayaa saddex xuub oo kale wax maro leh ayuu kala baxay. xuub loo yaqaano xuubka gudaha, xuub loo yaqaano xuubka dhexe, iyo xuub loo yaqaano xuubka sare ectoder. xuubabkaas waxaa ku kala abtirsan doona qaybaha jirkeen. xuub walbaba waxaa ku abtirsanaya qayb jirkeenna kamida ayay abuuraysa. xuubka sare oo ectoderma loo yaqaan waxaa ka dhasha laba xubnoodoo jirkeennaba ka dhasha, ay walaalo ku yihiin oo isku aabba ku yihiin. waa nervous systemkaan idin sheegaya, maskaxda iyo xangulli waxaasoo qayb ah iyo maqaarka.
maqaarka iyo maskaxdu waa walaalo isku hal xub bay ka yimid jirkeena meesha ugu badan malaha ee dareemada ugu badan ay tagaan kana soo qaadaan waa maqaarka mararka qaarkood qur-aanka waxaad ku maqlaysaa ilaahay u boodinaya gaalada oo la naarta markaan idin gelino inta maqaarku markuu gutaan idinku celinaan maqaar kale inta soo sameyn si xanuunka loo taabsiyo maqaarka buu ilaahay isticmaala maaragta harag haddaba nervous systemkii ayaan gelin waxaa mucjisaa hal unug oo gudihiisa wixii ku jiray ay wax kooban ahaayeen ayaa intaa uu tarmayo mar walba wuxuu dhalayaa unug kale oo abtirsiyo kale samaynaya almucjisooyinka ilaahay wuxuu dhalayaa koox dhan oo maqaarka samayn doonta koox dhan oo lafaha samayn doonta koox dhan oo nervous systemka samayn doonta koox dhan saas buu jirkeenni uu abuurmaya ilaa aada buuxsantadeed qofkii noqotay waa lagu qurxinaya waa lagu dhisaya rabbanaa maa khalaqta hada baadila subxaanaka faqina cadaab annaar qofkii caqli ulul albaab ilaahay marar badan buu soo qaataa ereyada ah adiga lagu tusayo haddaad wax fiirfiirin lahayd inay kugu filan tahay nafsadaada intaadan meelo kaleba aadin ya intaadan aadin xidigaha iyo magaciisiga inaad adigu is eegtid saad u abuurantahay saad u timidin saad u timid haddaba waxaan ka hadli doonaa marka dambe qaybta ruux waayo aqoon badan ba umeliyo waa taa ilaahay yidha wamaa utiitum min alcilmi ilaa qaliila laakiin qaybta lagu leeyahay dhakhtarku uu ku xeel dheer yahay waa qaybtan dhoobada wey aan ka hadlayno ee jismiga bini aadamku ka abuurmay wey qaybtaas waxay u kala baxdaan marka hore laba qaybood qayb loo yaqaano qaybta dhexe central iyo qaybta loo yaqaano dibadbax qaybta loo yaqaano dhexe centralku waa qaybta ay ku jiraan unugyada shaqada qabanaya unugyada shaqada qabanaya neuron baa loo yaqaana unugyada shaqada qabanaya waa halka ay fadhiyaan sida awgeed ilaahay laf buu qaadayoo uu ku xiray madaxii maskaxda waayo waxaa ku jira unugyadii qaaliga xambulihii buu soo qaadoo laf buu ku xiray xambulihiina intaa wuxuu ka ilaalinayaa alraxmaan marka wuxuu ka ilaalinayaa oo adiga laguu ilaaliyo waxaa lagugu xirxiray si aanay kaaga dhaawacmin maskaxda unugyadeeda wax qabanaya iyo xididadeeda iyo neerbayaasha qaybta dibadda aadaysa waxay tegaysaa neerbayaal baa loo yaqaana qaybtaas qaybtaa dibadda tegaysa waxay tegaysaa xubin kastoo jirka ah hadday maqaar tahay hadday murq tahay hadday laf tahay hadday calool tahay hadday wadno tahay hadday waxa ka shaqaysiinayaa macluumaadna ka soo qaadaya waa neerbayaasha laakiin xageeda u soo qaadayaan macluumaadka xaggee awaamirtu ka baxaysaa waa qaybtii dhexe balan soo qaadno maskaxda haddana sida loo sii ilaaliyo how waxaa looga dhigay laf haddaad qaabka lafta ay u samaysan tahay eegtay aqal soomaali bay ogta aqal soomaali bay ogtaa lagama dhigin murabbac lagama dhigin triangle lagama dhigin wax kale waxaa saa looga dhigay intaas oo nabar adigoo aadan ogeyn ayaa ka fakanaya oo hadday saa ahaan lahayd ku dhici lahay jibin laha lafta haddaa ka gudubtid bal xuubka sare iska dhaaf waxaa lagu xiray xuub waxaa lagu xijiyey biyo xuubab dhexyaacaya
waxa iyada lagu daboolo mare looga dhigay xuub kale. biyahaas maxay yihiin, maxay taraan? biyihii hilibka maskaxda oo weyn gudihiisu waa duleelaa. biyahan ka dhuuxaa inaanay isku soo dhish oran ayuu taray. maxaa loo geliyay biyaha? biyahani marka ay hoosna yimaadeen dhexdana yimaadeen, lafaha hoose ay ku fadhido maskaxdu madaxeenna kor waa ka sameeye, laakiin haddaad hoostiisa eegtid waa wada lafa taataagan sidii tooreeye. markaa biyaa la duldhigay, lafihii oo dhan la buuxiyey, doon baa laga dhigay biyaha ku dhex sabaynaysa. miisaankeedii kaleo ku cuslaan lahaa biyahan xataa laftigoodana dhexdaa biyo kale laga geliyay si qaar kalena loo sii kala fududay. biyahaas meel bay ka dhalanayaan, meel bay ka baxayaan, maskaxdoo dhan bay wareegayaan. 24 saac kombyuutarkaas kululaanaya ayay qabuujinayaan, ayay macdan u wadaan. adigu maad ogid intaana ilaah baa ku ilaashanaya waxaa kuu samaynay. weliba waad ku kibraysaa haddaad weliba adoo intaad aragteen ku yidhi waxba meelna kamaad imaan ayaad kibraysaa. saana lagu ilaalinayo, lagu ilaashanayo. haddaad aragtaan biyahaasi markay wareegayaan hadday meel ka xirmaan, hadday caruur yihiin madaxii baa biyihii kala shumaye weynaanaya. waydinka arkay caruuraha qaarkood madaxa fuusta la ekaaday, maxaa dhacay? biyihii baa waddadii ka xumaatay, ka istaagay. haddii qof laftiisu xirantay ay xirmaanna madaxii laftiida maskaxdii ciriiri noqonaysa, biyihii ciriiri noqonaysa. haddaan si dhaqsaa biyaha waddo loogu furina maskaxdii bay dilaya. maskaxda waxay ka kooban tahay meel ay fadhiyaan goobo ay fadhiyaan jananada wax maamulaya. fartaan isma dhaqaajin karto haddaan janankaani oran dhaqdhaqaaq, isma dhaqaajin karto. marka goobo ayay jananadu fadhiyaan. goobta hadalka halkaasaa laga xukumaa. goobta maqalka halkaasaa laga xukumaa. goobta dhadhanka halkaasaa laga xukumaa. goobta aragga halkaasaa laga xukumaa. wax allaala waxaad shaqo dareentid ama aad qabatid halkaasaa laga kala xukumaa. goobahaas askartaasi waxay leeyihiin waayiro yaryar oo dhoodhooban oo ka soo baxaya oo aadaya neerbayaashii aadaya. waayiradaas ilaahay su ku xanaaneynayo sida kuwan bini aadamkaba korontada loogu daboolay, caagga loogu daboolay. maxaa caagga loogu daboolay? haddaan taabto dabkii ay qabsan lahaa ayuu ku daboolay. 24 saac ama feker ama hadal ama soco, shaqadaas baa socoto waayiradaas maraysa. haddii dhaawac yar gaaro waayirkii, bal iska dhaf janankii, haddii jananka dhaawac gaaro lugtiiyo gacantii halkuu xukumaya curyaanaysa. oo idinka maqlay hebel vaalig baa ku dhacay. vaaligu waxaa weye goobtii gacanta laga xukumay buu ku dhufto, xididka ka xiran. hebel hadalkii baa gam ku yidhi, goobtii hadalka laga xukumay buu ku dhacay nabarka, ama xabadii haddii xabad lagu dhuftay kaga dhacay, ama intuu daar ka soo dhacay bay kaga dhacday qaybtii lugta xukuntay ama qaybtii kaayada xukuntay. haddaanu jannada dhaawacin ee uu dhaawaco xididadii isku dhowaa ayaa markay shaqada qabanayaan ee wareegayaan marmar istaabanaya. maxaa dhacaya? xanuunkaa u taqaanaa suuxidda. hebel waa suuxaa. halkaa ninkii taagnaa waad maqlaysaa gib, korontadii baa haysata.
intaa ilaahay xooga buu kugu xirxiray kuwa habeenay si shaqadaada u kala socoto alxamdulillahna waa lagaa leeyahay ya alxamdulillah keliya ayaa lagaa leeyahay xubin walba haddaad gaarkeeda u qaadatid keligeed ayaa aayada siday u shaqaynayso xubin walba siday u shaqaynayso carabkaani ma hadlo carabku gacantan buu la mid yahay midig haddii carabku hadlo gacantuba waa hadashaa waayo carabkana waxaa loo yaqaanaa oraah gacantana waxaa loo yaqaanaa qoraal labaduba waa hadlaa ya marka waxaas oo kayd ah oo meel yaal balan ka soo qabanno maskaxda gudaha ku jirta haddana qaybay u kala baxdo iyadoo kooban waxaa loo kala yaqaanaa maskaxda weyn iyo maskaxda yar maskaxda weyn waa taas la shaqaynaysa garaadkaaga gacanta qaad hadal yeel dareenkaaga ogaanshahaaga la shaqaynaysa iyo waxaadan ogeyn maskaxda yar ee qadaadka xigtana waxay la shaqaysaa ilaahay wuxuu kugu abuuray dhulkuna wuxuu leeyahay miisaan soo jiidasho ee gravity haddaan in yar lexdo gravity-ga ay jiidana way ridayso haddaad sawir qaadid inan kubad cayaaraya haddaad qaadid sawir ka qaadid waxaad arkaysaa isagoo madaxa ku tuuraya kubadda 19 meelood buu iska jijabinayaa 19 meelood si uu kubaddaa madaxa ugu dhufto oo muxuu dhici waaye samaduu marayaay muxuu u dhici waaye maskaxda yar baa xubin kasta oo muruqa oo jirka ah waxay geynaysaa inaanu dhicin haddii xagga uu dhici lahaa muruq kalo xagga xiga ayay ka shaqaysanaysa soo celinay soo qabanaysa ya marka waa adigaa iska laafiyoonaya waa adigaa gacmaha maanta o dhan wax ka shaqaynaya waa adiga adoon ogeyn hadda maala gaari baad wadaa ama tee baad garaacaysaa combyuter baad garaacaysaa maskaxda weyn garashaday leedahay wax inay qorto laakiin markii combyuterka lagu baro tayar baa ku filan inay gacmaha iyadoon fakerba kugu jiro ya tayar baa ku filan automatic inay u wado shaqadii gaariga anuu la sheekaysanaya shiika maanta o dhan ayaan gaariga iska wadaya ilaahna wuxuu yihi laba qalbi qofka uma aan samayn ya laba qof kama dhigin ma ahane tan baa rikoord garaynaysa wixii noqosho u baahan wax kastoo noqosho u baahan inanka kubadda iyo adigu haddaan training loo samayn adigu waad dhacaysaa kubadda markaa istiraadid madaxa la aad waad dhacaysa laakiin isagu training markii maskaxda yareyd loo sameeyey wuu qayba meel kastuu isku tuuro dhan kastuu isku tuuro wuxuu og yahay jirkiisu inuu ka adag yahay jirkiisa waxaa marka ay u kala baxaan qayb dareen qaadayaasha iyo qayb dhaqdhaqaaq ama shaqo fulin qaybta dareenku waxay u kala baxdaa qayb dareenkeeda aada adigu garanaysid qof baa itaabtay anigu waan ogahay dareen waa dareen aan ogahay ya laakiin waxaa jira 1 milyan oo dareen oo kugu socdo naftaada badbaadinaya oo adigu aadan ogeyn haddii masyar lugta kaa taabto anigoo la sheekaysanaya sheekh ya anoon ogeyn ayay jirkaygu dareenkii xataa maskaxda la gaarsiin maayo xambulaha laga soo celinaya amarka lugta la soo carar ya lugta la soo carar maskax inaan fakero ma masbaa ma waxaan baa layma ogola ya waa badbaadadaada haddaan taabashadu jirin haddaan xanuunku jirin maqaarkaagu xanuunsanayn
haddaan kuleel iyo qabow aadan dareemayn noloshu kuma suurtoodeen xataa jacayl kuma yimaadeen hooyadu ilmaha maaragtay ay dhasho haddaan intaa u soo marin yaa jacayl kuma yimaadeen jacaylka iyo xanuunku waa wada socdaa iyo jiritaan marka qaybta wax og waa qaybta kaadi baa ku qabatay marka adigu kaadida ma ogid iskama adkeenin inay ku qabatee dareenkii aadan ogeyn baa ku ogeysiiyey markuu xad gaartay ayaad dareentay kaadi adiguna waxaad gaartay go-aankii ahaa soo kaadi garashadii baad la timi qaybtii laga xukumay maskaxda sare ee garashada weyneyd ayaad isticmaalaysaa marka waxaa jira dareen shanta ama lixda xubnood ee muhiimka ah iyo kan waxaa la yihahdaa dareemada gaarka ah indhaha dhegaha sanka maxaan dhahaa dhadhanka waxaas oo mid walba haddaad raacdid sida uu u shaqaynayo aad ku dhammaanaysid rabbanaa maa khalaqta hada baadilan subxaanaka faqina cadaaba annaar aad ku dhammaanaysid hubaal aad ku dhammaanaysid ya marka haddaan guud ahaan kaga haro ma ahan keliya dheecaan kastoo jirka laga sii deynayo adigu maad ogid ishaadaasoo keliya arag baad u haysataa inaad isticmaalaysid laakiin waa lagu ilaaliya adiguna isma ogid waad libiqsanaysaa adoon isogeyn intaas libiqsiga siigadii iyo qalaylkii iyo laga tiraya way ilmeynaysaa ilmo yar bay samaynaysaa waa la mayraya wixii siga yar ku dhacay iftiin xoog la ku dhacayo adoon ogeyn baa bu'da madow ee yarta ah la xirayaa si aan muraayadu kaaga guban adigu ma ogid ilaah baa ku ilaashanaya ya raxmaddiisaad ku joogtaa marka wax walba isagaa isku xilsaaray inuu kuu ilaaliyo ya oo ku hagaajiyo si aad u noqotid wax perfect ah oo aayaadka markii laga hadlayo mid walba ay ku geyso bini aadan ma samayn karo yaa sameeye waxaa yaa sameeyey waa su-aasha imaanaysa waxaan imaanaysa haddaan kaga gudbo marka cishii baa dhow qaybtii ruuxa waan soo koobayahay qaybtii ruuxa xanuuno un baa la yidhaahdaa xanuunadaas ruuxay ka dhashaan maxaa dhacay maxaa loo yiri ruuxay ka dhashaan waayo markii la baaray dhiig la baaray dhacaan la baaray qalab la baaray kombyuutarada ugu dambeeye la baaray meel jismigii dhoobada ahaa ka xanuunsan yahay baa la waayay ya meel allaale meeluu ka xanuunsan yahay ayaa la waayay qofkii waa dhan yahay adiga kaa caafimaad badan gidaarkaasuu rujinaya wax kastuu kaaga xoog weyn yahay haddana waddaduu taagan yahay dharkiibuu dhigtay waa qaawan yahay dadka dhexdoodiibuu qaawan yahay waad baartay maskax burbursan ma jirto waad baartay ya qofkii baad u timid qulub buu ku jiraa way isxiray dunidii buu iska xiray qam xubin amarkii qaadanaysa male gebigeediibu waa qafilmay qofkii muruguu ku urur iyo madow wax noocaasa iyo calaamado noocaasa un mooyaane sida loo taaban karo suuxidda haddaan qalab ku saaro meeshii dhaawacu kaaga yaalayay ee xididadu iska taabanayeen inaan ku tuso ya ama bura kaaga soo baxday haddaa shil gashidoo dhiig kugu furmo inaan ku tuso meeshii dhiigku kaaga furmay in la qalo iyada meel qalab loo isticmaalo ya oo aan ahayn waxaaba baaritaankeeda go-aankeeduba yahay markaad baartid haddaad wax weyday jismigan ku dhacay iska dhe ruuxa hadda ogow maalin walbaba bini aadamku markuu aqoontiisu kor u sii kacdana ya waxaa la helaa xanuuno dadka waala markii dambe xanuuno dadka qulub ku ridi xanuuno aqoontiibaa soo saartay maaragtay waxyaalo fara badan oo kale soo saartay
qaybtan ruux inta yar ee kolley anigu aan ka sheegi karaa waxaa weeye waa qaybta qofkan maamusha maala hadday ta waxaan idhi 3 qaybood kaada ay qabatay anugu maan ogeyn waan dareemay waxaan la imid garaadkii ahaa kaadaa ku haysee soo kaadi waa qaybtii garashada laakiin laba ii furan sida xoolaha hortiina inaan ku kaadiyo iyo inaan meel asturan doonto qaybtaa xishoodka iyo yaxyaxa iyo garaadka iyo talada xukunta wey ruux ee aan kuu ogolaanayn ya halkaa ku kaadi ku ogolaan waa qaybta hagaysa inta kale ee ruuxa qofkaaga hagaysa hooyada waxaasay kaa mudanta aabbaha waxaasuu kaa mudan yahay bini aadamku waxaasuu kaa mudan yahay ilaahay waxaasuu kaa mudan yahay xooluhu waxaasay kaa mudan yihiin wax kasta oo u baahan damiir iyo talo iyo maxaan dhaha wanaag iyo xumaan laysku dhelitirayo ruuxa iskale maskaxdu marka arrimaha kama taliso iyadu waa gaari la istaargaraynayo ya waa gaari la istaargaraynayo ficil waxaa jira haddaad si u samaysid kula fool xumaanay haddaad si u samaysidna kula wanaag noqonay hadda matal ka soo qabo dhakhtar baad u tagtay adigu baasiir baad ka cabatay ya dhakhtarkii baad tiri niyow xanuunkaas ay xanuunkaas bahay dhakhtarkii wuxuu ku yidhi dharka iska bixiyo foorarso halka haysta waad yeeshay ya wuu dhamaystay wuxuu ku yidhi wax ma qabta ama waxba qabta laakiin isla dhakhtarkii hadduu ku yidhah dadka dhexdooda tagoo dharka iska bixi ka yeeli maysa waayo maxaa labadan shay labadaba isagaa ku amraye labadaba isagaa ku amray labadaba maskaxdu dharkala bixin taqaanaa laakiin mid waxaa la socda damiirkaan idiin sheegaya baa la socda xisaabtankii baa la socda waxaani ma mudna iyo waa mudan yihiin baa la socota marka qaybtaa ku dheeraan mayo qaybtii kale ee koobnaydna waxaan kaga soo ururinaya waxaa wahay jismigeenna meel allaale qaybtii baan usoo noqonayaa ahayd dhoobadee jismigeenna ma jiro xubin magac leh oo aan neerva imaan ama neerva ka tegin dhammaan waxaasoo dareenana ee socda iyo dareen soo degayana waxaa loo wadaa qaybo kala sallaansallaana qaar waxaa lagu xallinayaa meel ka sokaysa maskaxda oo aniga ku lahaa waxba ay taabtay oo waan lugtii baan la carar maskaxdii aanoon aadin qaar kale waxaa lagu xallinayaa meel xangullaha ka sarrayso maskaxda gaarin qaarna waxaa lagu xallinayaa maskaxda oo dareenkeedii joogo oo taladii ku siinaysa saa yeel saa yeel saa yeel saa yeel indhahaan waxay ka mid yihiin difaaca ka sokow garashada iyo aqoonta iyo waxa kale ay ku siinayaan ka sokow difaacay ka mid yihiin waayo markaad bahalka aragtid maqashid urisid ayaa dareenka ku gelaya maaragtay inaad nafsadaada badbaadisid marka adoo dhan waxaad ka samaysan tahay cid la xanaanaysanayo oo la korinayo oo la koolkoolinayo oo loo roon yahay ya oo cid kale oo kuu qaban karta intaana aanay jirin ilaah baa mahadle wasalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu جزاك الله خيرا أنا المنزل دكتوركم وهو إن تصل اسم إلهي يا رحيم اسم إلهي يا رحمن اسم إلهي يا لطيف اسم إلهي يا رؤوف اسم إلهي حنان أيوه إن دلقي قرشي إلى حين عيان الله أفحسبتم
أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إلهي تبارك وتعالى إن بدأ المغور فقعد يدرك يو أولاد مؤمن كان شغل ضميرك سنوري وحكوين تبدأين الآخر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دكتا كليا هي مقل كليا هي مسكحة سيدي سبيل إليه أي فقين تبسوه بليس وصح كير سكن تسوح كير أي مركبة صوت بعض مقلسة صوت كاس isla markiiba wuxuu ku odhanaya ribaa ceynaysa sawd baad maqlaysaa waxay kuu kala saaraysaa ma xayawaan baa mise waa bini aadam ayay markiiba kala garanaysa waa isla dhegtan sawdka ku soo dhacay waa hirar yaryaroo socda oo durbaankeeda cadkeeda ka samaysa xoogkeeda garaacaya markaasuu sawd baa kugu soo dhacay sawd kasta oo yaqaano waa hebel baa halkaa ka hadlaya toban qof haddaad halkaa joojiso sawdkooda kala taqaano oo hal erey isku mid ah ay ku wada hadlaan mana arkaysid dhammaan way ku kala sheegaysaa kaalay bay wada yidhaahdeen isku xarfay ka koobayn ereyada ku dhawaaqeen haddana kaalayna ay ku wada dhawaaqeen mid walba dhadhan gooniyay ku samaynaya kaalaydii 20 qofka sawdkooda taqaano ku hadleen indhahaana wax allaala waxay arkeen way rikoodgaayeen meel bay ku xaraysanayaan markaasaa idiin eego aragtideeda markaan markiiba eego waxay ii tarjumaysaa muuqaalka kuu jooga waa maxamed muuqaalka kuu jooga waa daahir muuqaalka kuu jooga waa hebelkii kale muuqaalka kuu jooga anigu horumaan arag bay maskaxa ku odhanaysaa waa qof kugu cusub qofkan kuu jooga bay ku odhanaysaa mararka qaarkood qofaad waa hore istaqaaneen baad arkaysaa markaas garaysaa qaybta hoose ee dambe ee boolowday baad ka soo dhufanaysaa markaas waa hebelkii 30 sano ka hor aan istaqaaneen meel bay ku haysatay guryahan aynu tegayno wadooyinka iyo halkii kala dhacdaan iyo gurigaagu halkuu ku yaalo qayb baa kuu xifdisan haddaana qaybtaas ku xifdi lahayn aqalkii kugu soo hagay waa iska geli lahayd aqalkii kugu soo hagay wadakii markay ducaa markii ay jeedooyinka dhisanay habeenkii inta qaybo ka xisay hebeelo oo wada teendhaca ma kala taqaan waxaad arkaysaa adoo teendha kale iska gala war maxaad ahay meel gurigeygii ahayn gurigeygii maaha marka ilaahay wuxuu siiyey inta aada nooshahay qayb xifdida oo kuu kala saarta muuqaalada kuu kala saarta urta kuu kala saarta midabada inta ilaa bishaada arkaysa wada midab ah mid walba qaybay ku xifdiyaysaa carabkaagu inta noocoo dhadhameeyo haddii dhadhan hal carab lagu samayn lahaa oran halkii kala qabsanaya carabadu wada carabaa noqonaya hadday indhaha qayb walba il gaara loo samayn lahaa wejigaag wada ilku noqonaa soo dhagaha aada arkaysaa haddii sawd kasta dhagaara la siin lahaa intee leegba mashquul lahaa marka dictoorkana waxbaa xasuusiyey hal erey bay noo odhan doon marka baaraka allahu fiikum calaykum ilaahay cayaari nooma aqoon garashada inagu isgaranay baynu ilaahay ku garanaynaa dictoorkana eryar baan ku celinaya waxaan xasuustay keliya araggan iyo maqalkan iyo waxaan kuwa dhoobada ku talagala inay jiraan arag iyo maqal kale oon kuwaan alalkaysaanahay qaybtii ruux yaa qaybtii maaragtay markii ilaahay ku leeyahay suma cumi waa indhala yihiin waa dhegala yihiin ma aha in indhuhu dam yihiin oo dhugu dam yihiin oo yaa may fahata macnaha xataa qofka waa sheeko soo qabo isagoo dadkaani joogaanoo keligiisa buu sheekooyin maqlaya aan dadkeenaani maqlay may garata macnaha wuxuu arki karaa waxaan indhaheenaani aanay arkin buu arki karaa yaa israalahu ayuu arki karaa marka ku talagala in labadan qayboodoo qofka ay qaybta weyn ee wax qiimeyn karta arag ahaan qiimeyn karta wax
tani waxay qiimeynaysaa keliya waa waxaan dhulka keliya laakiin waxaa qiimeynaya wixii xikmad leh waa indhaha kale wey waa dhegaha kale wey ya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa midaas uu sheekhu sheegay macnuhu wuxuu tilmaamaya aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay innaha laa tacma al-absaar walaakin tacma alquluubu allatii fi suduur halka laga indhabeelaa maaha indhaha keliya indhabala-aantu waa markuu damiirku damiirku hadduu baktiyo hadduu dufanaadis yahay daliilku hortiisa yahay waxaa kaga beegandaa dadkuna badi waa sidaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh jimcaha